aniga iyo adiga waxaa wada leenahay kan calankan yacni muwaadiniin Soomaaliyeed ayaan wada nahay waxaana naga dhaxeeya calankan quruxda badan ee babanaya wuxuuna ka babadaa wadamo kala duwan oo daafaha dunida ku yaala balse hal su'aal 5 ilbiriqsi ayaad haysataa ma taqaanaa qofkan si fiican u fiiri wajigiisa waxaan filayaa inaad aqootay haddii aadan aqoonsaninna magaciisa iyo wax uu yahay ayaan kuu sheegayaa waana mid la xiriirta calankan fadlan like saar muuqaalka haddii aad tahay qof muwaadin ah ku soo dhawaada muuqaal ka duwan kuwii hore kuna saabsan calankan naga wada dhaxeeya kani waa calankeena aqoonsigeena gaarka ah oo aan kaga duwannahay wadamada kale ee dunida ku yaala Soomaaliya in dal ay tahayna waxaa lagu garanayaa calankan naf maal iyo maskaxba waa lagu bixiyay bal maxaad dareentaa markii dhagahaada ay soo gaaraan tan يعني dareen wadaninimo 12 Oktoobar waa maalinta u gaarka ah calankeena loona asteeyay in la maamuuso calankan quruxda badan laakiin ninkan waa qofkii hindisay naqshada calankeena qurxiyay kana fikiray calankan aan ku faanno waana Allahu naxariistay Maxamed Cawaale Liibaan oo ahaa qofka keenay naqshada uu u sameeysan yahay calankan ku muuqda hadda waana qof mug iyo miisaan ba ku dhaxleh Soomaalida dhaxdeeda 12 Oktoobar 1954 ayaana la nashqadiyay calankan quruxda badan in meersar uu gaarana wax walba ayaa lagu bixiyay dhanka hadii aan u jeesto in kasta oo dadka qaar ay yiraahdaan calankan waxa naqshadeeyay gumeystii Talyaaniga laakiin inaga waxaan naqaanaa oo taariikhda ku heynaa in Allahu naxariistay Maxamed Cawaale Liibaan ninkan uu naqshadeeyay calankeena lahaana fikradda qaabka uu noqonayo calankeena quruxda badan halgamaa Maxamed Cawaale Liibaan ayaana noo hindisay naqshada calankeena gumeysta iyo wax kale kama hadleeno calankan buluuga ah waa keyga kaaga kuwiina kuweena iyo kuwadaba wuxuuna sumad lagu garto u yahay dalkeena Soomaaliya qof walbana uu jecel yahay wuxuuna ka babadaa daafaha wadamada dunida ku yaala iyo meel kasta oo qof Soomaali ah uu joogo qof kasta oo Soomaali ahna wuu wataa meel kasta ayuu ka soo dhex muujiyaa si uu noqdo mid sareeya waa calan qurux badan kana qurux badan calamo badan oo ileeyihiin wadamo badan Soomaaliyeey hormar wacan insha Allah dhibta iyo dhibaatada waa laga bixi calankuna ha sareeyo fadlan like saar muuqaalka haddii aad tahay qof muwaadin ah muuqaalkii maanta aan ugu talagalay ka sheekeynta calankeena quruxda badan intan ayaan ku soo koobayaa tani muuqaalkeena xiga maalinta bari waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo amaana Allah